runtii aad ugu faraxsanahay maanta inaan kulanno waana fiican lahayd inaan hore u kulmi lahayn oo waxa alla wixii fikra xiisaan iyo waxaan anigu aan hayo aan isku dhaafsano sidii loo horumarin lahaa hadday noqoto bilicda iyo dhismaha iyo adeega dadweynaha sidii loo horumarin lahaa annaga ku biirin karo waxa alla wixii tala ah gudoomiye waa mahadsan tahay mar kale marka xigta runtii aad ugu faraxsanahay in guddiga wacyigelinta iyo guddiga abaabulkii wacyigelinta in ay idinla hadlaan oo idin jeexaan siyaasadda gobolka ku shaqeynayo ama siyaasadda magaalada ku shaqeynayso runtii waa wax wanaagsan wax aan siyaasad lahayn shaqadeedu runtii meesha ku dhamaanaysa lama yaqaan wax walba waxay leedahay iyo hawl kastoo la qabanayo waa inay leedahay policy ama siyaasad shaqada lagu qabto iyo meesha ka bilaabato iyo meesha loo socdo runtii waxaa soo bandhigteen presentation ama warbixin wanaagsan oo runtii wax gal ah aniga naftii siisay faham inaan ogahay gobolka inuu runtii shaqeynayo oo uu abaabulan yahay uu organized yahay inaan fahmo aad iyo aad u wanaagsan tahay waxaad sheegteen kulli waa wax wada wanaagsan markaan idin dhageystay saddex arrimood keliyaan rabaa horta inaan ku kordhiyo oo ay noqoto waxaad ku shaqaysaan ay noqoto waxaad ku shaqaysaan oo mabaadi' ah oo laydinkaga dayan karo bacdamaa ay muqdisho tahay caasimaddii dalka oo la rabo in gobollada kale iyo magaalooyin kale ay idinkaga daydaan in laydinka arko qof musuq maasuq ka shaqeeyana umad uma adeegi karo maxaa yeelay annaga waxbaan rabnaa inaan dhisno qofka musuq maasuq ka shaqeeya waxbuu rabaa inuu dumiyo wuxuuna u duminayaa dan isaga gaar ah uu leeyahay oo kooban oo maxay tahay guri dhiso war guriga xaggee ka dhisanaysaa haddee magaalada quruntay caruurtaada xaggee iskoolka aadayan haddii adigu aada jeebka gashay guri ku dhisatay macalinkii wixii la siin lahaa ama iskoolka loogu dhisi lahaa marka qofkaasna waa qof maan gaaban umad uma adeegi karo waa qof dan shaksi ah ka shaqeeya qof kastoo halkan fadhiya waxaan iska aaminsanahay ama qiyaasana inuu aqoontiis ku yimid enaf maaha inaad aqoonta kordhisaan oo wax barataan oo areada ladiin xil saaray aada ku noqotaan qofka ugu khibradda badan ugu aqoonta badan oo wax laga barto marka inaan laga caabisin waxbarasho oo aqoonta kor loo qaado aqoonta la kordhi kor loo qaado oo shaqaalaha midka ugu hooseeya aqoontiisa la dhiso ay ugu horeyso aqoonta civil educationka mas-uuliyadda adiga aada meesha ku fadhido maxay tahay horta wax entitlement ah maaha awooga oo kaa dhexday maaha waa ammaano lagu dhiibay marka waa waxyaabaha marka laydinkaga dayanayo bacdamaa xamar ay tahay magaalo madaxdii dalka dadka ka shaqeeyana oo xilaka u hayana laska qiyaasayo ama la aaminsan yahay inay yihiin dadka ugu wanaagsan oo ah ama mudan in wax laga barto marka macnaheedu waxay tahay madaxdii iyo indhihii dalka oo dhan yaa tihiin marka isxilqaan waa program dadka o dhan ka dhexeeya ma aha mid siyaasadaysan ma aha waa mid ummadda o dhan ka dhexeeya oo aan oran karno qof walba waxa ku darsado dariskaaga bilicdiisa iyo magaaladan quruxdeeda waa sharafkaaga iyo wanaagiisa marka anaa ugu sarreeya wax public servant ah oo ummadda ay u doorteen ama xilal ugu dhiibteen inay u adeegaan oo dib ugu soo celiyaan shaqaalaanna kulligeen kulli shaqaalaa tihiin marka dadka idin yimaadaan madax uma tihiin oo aad maxaan ku rahdaa aad siinaysaan adeeg maxaa yeeley iyagaa mushaharka idin siiya marka iyagaa u shaqaysaan marka xafiisyada laidinkugu yimaado madax ma tihiin servantaa tihiin adeegaa yaala tihiin inaad soo dhaweysaan oo grievansigooda ama dhibaataday qabaan dadka aad dhegeysataan kabacdina kala qabataan
ya waa mahadsantihin. Asalaamu calaykum.